gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Maadaale ayaa shalay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar ku qaabilay danjiraha dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya u fadhiya Soomaaliya Maxamed bin Axmed danjiraha oo ugu yimid duqa Muqdisho in uu u hambaliyeeyo magacaabida hoggaanka gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho ayaa waxa uu xaqiijiyay in dawladda Sacuudiga ay kala shaqayn doonto gudoomiyaha dhinacyada horumarka iyo dib u dhiska caasimadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu danjiraha xusay in ay qayb ka noqon doonaan maalgashiga caasimadda si dhaqaalaha u kobco isla markaana shacabka Muqdisho ay u helaan fursado shaqo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhankiisa danjiraha Maxamed bin Axmed uga mahadceliyay sida dawladda Sacuudiga u taageerta dalka Soomaaliya waxa kale uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay Soomaaliya inay sii xoojiso xiriirka ka dhaxeeya labada shacab taasi oo ku qotonta iskaashiga iyo wax wada qabsiga labada dal Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana Soomaaliya uu ka fuliyaa mashaariicyo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed